halkan waa janalka Rafiiq Al-Macruuf. Subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaal walba oo aan soo gelino. Taabo calaamadda gambaleelka si aad u ogaato. As a great president, not only was he well waxa uu ahaa madaxweyne aad u weyn, waxauna ahaa nin howlkara, waxauna lahaa aragti dheer, xitaa booqashooyinka waxa uu salaami jiray ciidanka madaxweyne George H.W. Bush. George Herbert Walker Bush waxa uu ahaa madaxweynihii 14aad ee Mareykanka, wuxuuna dhashay 12 Juun sanadkii 1924. waxa uu soo noqday madaxweyne ku-xigeen, sidoo kalena waxa uu madax ka noqday wakaaladda sirdoonka ee Mareykanka ee CIA-da. George waxa uu ku soo qaatay carruurnimadiisii koonfur bari ee Mareykanka, waxa uu bartay kulliyadda dhaqaalaha, wuxuuna guursaday markii ugu horeysay sanadkii 1941. George waxa lagu xusuusan doonaa in isagoo 18 jir ah uu ku soo biiray maamulka dawladda, wuxuuna ahaa dadka farakutiriska ee dhalinyarada kuwaas oo hawl muhiim u hayay qaranka. sidoo kale waxa uu noqday pilot kaxeeya diyaaradaha ciidanka. George waxa uu noqday sanadkii 1962 nin siyaasi ah, wuxuuna soo galay saaxadda siyaasadda sanadkii 1964. waxa uu u tartamay aqalka representative-ka kaas oo ku guuleystay 2 jeer. sanadkii 1966 mar labaad ayuu ku soo laabtay. sanadkii 1970 waxa uu noqday George safiirka qaramada midoobay ee Mareykanka u fadhiyo. intii u dhaxaysay sanadkii 1973 ilaa 1975 waxa uu ahaa safiirka China ee Mareykanka u fadhiyo. sidoo kale 1976 waxa uu noqday ninka ugu sarreeya ee hay'adda sirdoonka Mareykanka ee CIA-da. madaxweyne George waxa uu ku guuleystay doorashadii ka dhacday Mareykanka sanadkii 1988, wuxuuna noqday madaxweynihii 14aad ee dalka Mareykanka. waxaa lagu xusuustaa intii uu xilka hayay in dagaalkii qaboobay ee adduunka guul uu ka soo hoohiyay. sanadkii 1990 markii madaxweyne Saddam uu weeraray dalka Kuwait, madaxweyne George Walker Bush waxa uu jeediyay khudbad taas oo ku cadeynayo in Mareykanka diyaar u yahay inuu ka qayb qaato dagaalka golofka ka socdo. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war. 5 bilood ka hor ayay ahayd markii Saddam uu weerar ku qaaday dalka Kuwait. laga bilaabo caawa waxaan cadeynaynaa in Mareykanka si toos dagaalku u geli doono. sidoo kale madaxweyne George waxa uu doorashada mar labaad ku guuleystay sanadkii 1992. intuu xilka hayay waxa lagu xusuustaa in Soomaaliya uu soo diray ciidankii la oran jiray UNISOM-ta ee rajisoo celinta Soomaaliya, kuwaas oo dagaal baan la galay Generaal Maxamed Faarax Caydiid. ugu dambeyntii 93 waa ay ka baxeen Mareykanka Soomaaliya. George waxa uu ifka kaga tagay 5 carruur oo uu dhalay, waxaana ku jiro madaxweyne George W. Bush ee sanadkii 2001 ku guuleystay doorashada Mareykanka, iyo 17 carruur oo awoow u yahay iyo 8 carruur awoow u yahay ay si dhaleen ee abshaxan u yahay. ugu dambeyntii madaxweyne George xaaskiisa ugu horeysay waxa la dhihi jiray Barbara, waxayna geeriyootay 17 Abriil sanadkii 2018 iyadoo ku geeriyootay da'da 92 jirka. isagana waxa uu geeriyooday 1 December sanadka 2018 isagoo jiro da'da 94.